Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Meel walba aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka. Qodobada barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah kulan adag oo dhexmaray xulalka Jarmalka iyo England oo kusoo dhamaaday barbardhac. Xulka Talyaaniga oo garaacay xulka qaranka dalkaasi Hungary. Weeraryahankii hore ee xulka qaranka England iyo kooxda Tottenham ee Jeremy Defoe ayaa dhaleeceeyay tababaraha xulka qaranka England. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka. Fadlan haddaad ku cusub tahay like inoo saar, subscribe dhasina share garaysi barnaamijkana asxaab badan u gaaro. Xalay waxaa la ciyaaray kulan aad u xiiso badan oo dhexmaray xulalka England iyo xulka qaranka Germany. Ciyaarta ayaa waxay ka dhacday garoonka Wembley Stadium. Labada xul ee England iyo xulka qaranka Germany ayaa soo bandhigay qaab ciyaareed aad u fiican inkastoo qaybtii hore labada xul ay iska khasaariyeen fursado badan. Markii dib loo isugu soo laabtay qaybtii labaad ee ciyaarta, xulka qaranka Germany ayaa waxa uu la imaaday dadaal aad u fiican, waxaana daqiiqadii 52aad rigooro loo dhigay. Rigooradaasi gool u sarafay xidiga kooxda Manchester City iyo xulka qaranka Germany ee Ilkay Gundogan, waxaana daqiiqadii 67aad goolka labaad sii raacsaday ciyaaryahanka xulka qaranka Germany iyo kooxda Chelsea ee Kai Havertz oo ciyaarta ka dhigay 2-0. Tababaraha xulka qaranka England ayaa isbedel fiican uu sameeyay, waxa uu garoonka soo geliyay xidigaha Mason Mount iyo xidiga kooxda Arsenal ee Bukayo Saka. Labadaasi xidig ayaa isbedel weyn ka sameeyay ciyaarta, waxayna soo bandhigeen qaab ciyaareed aad u fiican. England ayaa muddo 11 daqiiqo gudahooda waxay ku dhaliyeen 3 gool inkastoo ay difaacan waayeen guul ay gacantooda ku jirtay. Tababaraha xulka qaranka England ayaa ciyaarta kadib waxa uu sheegay in bandhig aad u fiican ay sameeyeen xidigaha Mason Mount iyo Bukayo Saka, waxaana lagu dhaleeceeyay tababaraha in xidigahaasi tayadaasi fiican leh uu ku hayay kursiga keedka ee xulka qaranka England. Dhanka kale, xulka qaranka Talyaaniga ayaa waxa uu garaacay xulka qaranka Hungary. Talyaaniga ayaa bandhig fiican uu sameeyay kulamadii ugu dambeeyay ee uu ciyaaray UEFA Nations League, inkastoo xulka qaranka Talyaaniga uu ka haray koobka adduunka ee sanadkan lagu qaban doono dalka Qatar. Tababaraha xulka qaranka Talyaaniga ayaa waxa uu sheegay in xulkiisa haatan uu haysto ciyaartoy daayar oo wax fiican ku soo kordhin kara xulka qaranka Talyaaniga, waxaana uu tilmaamay in xulkiisa meel fiican uu ka soo gaari doono tartanka UEFA Nations League. Inkastoo xulka Talyaaniga uu ku guuleystay Euro 2020 oo finalkiisa ay ka qaadeen xulka qaranka England, inkastoo uu sheegay in ciyaartoyda da'da yar ee uu haysto xulka qaranka Talyaaniga wax weyn ay ku soo kordhin doonaan tartanka UEFA Nations League. Dhanka kale, ciyaaryahankii hore ee xulka qaranka England iyo kooxda Tottenham ee Jeremy Defoe ayaa eedeeyay tababaraha xulka qaranka England Southgate, waxaana uu sheegay in uu ku qaldanay in keedka uu ku sii hayo xidigaha Mason Mount iyo xidiga Bukayo Saka. Labada xidig ayaa bedel lagu keenay ciyaartii xalay dhexmartay xulalka England iyo xulka qaranka Germany, waxaana uu sheegay in labadaasi xidig markii garoonka la soo geliyay ciyaartoyda xulka qaranka England ay sameeyeen isbedel aad u fiican, waxaana uu sheegay in ciyaartoyda xulkaasi ay dhibnaayeen kaliya xidigaha bedelka lagu soo geliyay. Xulka qaranka England ayaa waxa uu muddo 11 daqiiqo gudahood uu ku dhaliyay 3 gool inkastoo uu ilaashan waayay natiijada ciyaarta oo gacanta ugu jirtay xulkaasi. Waxaana Jeremy Defoe uu sheegay in ciyaartoyda Mason Mount iyo xidiga kale ee Bukayo Saka ay bandhig aad u fiican ay ka sameeyeen horyaalka English Premier League sanadihii ugu dambeeyay, inkastoo ciyaaryahanka kooxda Chelsea Mason Mount uu sanadkan wax badan ku soo bilaaban kulamada horyaalka English Premier League, laakiin waxa uu difaacay qaab ciyaareedka xidiga kooxda Arsenal ee Bukayo Saka, kaasi oo xalay isbedel fiican uu ku sameeyay kulankii dhexmaray xulalka England iyo xulka Germany.
England ilaa haatan wax guul ah ma gaarin tartankana waxaana laga badiyay kulamo aad u badan inkastoo xulka qaranka England uu ku dhibaatoonayo tartanka UEFA Nations League. Dadka qaar ayaa waxay soo jeedinayeen in la ceeriyo tababaraha xulkaasi, laakiin tababaraha ayaa sheegay in kaliya waxyaabaha laga sugayo rajadiisa ay tahay inuu soo qaado xulka qaranka England tartanka koobka adduunka ee sanadkan lagu qaban doono dalka Qatar. Waxaana dadka qaar haatan bay soo jeedinayaan in shaqada laga ceeriyo oo tababar cusub loo magacaabo si leeliya kulamada tartanka World Cup ee sanadkan lagu qaban doono dalka Qatar. guud ahaan waa naga intaa barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka. Fadlan haddaad ku cusub tahay like inoo saar, subscribe dheh, siina share gareey barnaamijkeena si asxaab badan u gaaro. Mahadsanidina.